السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada dhammaan walaalaha ku xiran channelkeena saan cusub. walaalayaal mowduucani maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ku ogaan karaa waxa aan jecelahay, waxa aan xiiseeyo, waxa aan rabo inaan noqdo mustaqbalka. sidee ku ogaan karaa? waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah. jecel yahayna qof walba inuu ogaado, qof walbana rabo in loo sheego waxa uu jecel yahay ama waxa uu rabo mustaqbalka. qofkuna haddii uu ogaado waxa uu jecel yahay ee uu ka helo inuu noqdo mustaqbalka, waa qof maareeyay mustaqbalkiisii. walaalayaal, inaynu ogaano mawhibadeena waxaynu jecelahay inay noqono waan ogaan karnaa haddii aynu marno dhowr qaab. waxaa laga yaabaa inaad ogtahay waxaad jeceshahay inaad noqoto, laakiinse dad ayaa jira aan ogeyn waxa ay rabaan inay ogaadaan. waxaasna haddii ay tallaabooyinkan maraan way ogaan karayaan mawhibadooda iyo waxa ay jecel yihiin ay xiiseeyaan inay noqdaan mustaqbalka. 4 qodob aan kuu sheegi doono haddii aad marto waxaa shaki la'aan ah in aad ogaanayso waxa aad jeceshahay iyo muhiimadaada aad rabto inaad noqoto mustaqbalka. qodobka koowaad, waxaad eegtaa maxaad jeceshahay. fiiri qofku waxa uu jecel yahay ayuu noqdaa marka uu mustaqbalkiisa gaadho. qof walbaaba wixii uu jecel yahay ayuu la marka waxa aad jeceshahay fiiri. maxaad jeceshahay? maadadee baad ku fiican tahay? maxaad rabtaa inaad dhigato markaad cilmi dhiganayso? diini maadadee baad ku fiican tahay, aad ugu sii fiican tahay? waxyaalaha fiiri. haddii aad ogaato maxaad jeceshahay, waxaad dareemaysaa in aad aragto mustaqbalkaaga waxaad rabto inaad noqoto. marka fiiri waxaad jeceshahay si aadan isugu dhex yaacin oo ayna isaga kaa dhex yaacin waxa aad jeceshahay iyo waxaan jeclayn. qofku wuxuu leeyahay ileen waxa loo yaqaano doonis. qofkuna haddii uu doonistiisa ogaaday waxa uu jecel yahay waa uu gaarayaa. qodobka labaad, ku noqo yaraantaadii, xasuustaadii dib ugu noqo. waxaan ka wadnaa qofku markii uu yaraa waxyaale ayaa jira uu awood u lahaa, waxyaale ayaa jira oo markuu asxaabtiisii iyo carruurtii yarada la joogi jiray ama la ciyaari jiray marka uu ku dhex jiri jiray waxyaale awoodo u gaara, ama xifdi ha ahaato ama ha ahaato wax kale. waxaa jirta qofku markuu yar yahay inuu og yahay inuu wax ku fiican yahay oo la dheer yahay asxaabtiisa. marka yaraantaadii ku noqo. maxaad xiisayn jirtay? maxaad kaga fiicneed kuwa kale aad la ciyaari jirtay? haddii aad ku noqoto waxaad ogaanaysaa waxaad jeclaan jirtay. kadib laga yaaba inay kuu soo baxdo waxa aad jeceshahay inaad mustaqbalka noqoto. qodobka ku xiga, macallimiintaadii dib ugu noqo. maxaan ka wadnaa? macallinku waa waxa qura ee ardaygu ku ogaan karo ama qofku ku ogaan karo waxa uu jecel yahay ama awoodiisa iyo muhiimadiisa uu ku ogaan karayo. intaa waynu ognahay macallimiin ayaa wax dhigaya arday ay wax u dhigayaan. ardaydaas macallimiintu qaar ay ka xiiseeyaan. macallimiintu ardayda qaarka ay xiiseeyaan waxaa jirta ardaydaas midba waxbay u diraan. mid bay ku dhahaan hebelow maanta wax jeedi, hebelow casharkaa soo diyaari. maalin walba arday bay ku dhahaan waxaa soo diyaari, waxaa soo eg. mid bay ku dhahaan waxaan soo jeedi. maxay ka wadaan macallimiintu? macallimiintu waxay og yihiin ardaygana wax u dhigayaan hobbigiisa iyo wuxuu ka helo. waayo macallinku isaga war ku haya, isaga wax ku dhiga, isaga ayaa kaa soo saara waxa ku jira maskaxdaada oo su'aalo ku weydiiya. marka dib ugu noqo macallimiintaadii waxay ku diri jireen badanaaba maxay ku dhihi jireen qabo waxaas. macallinkuna uma diro ardayga ilaa waxa uu ku fiican yahay. markaas waxaad ogaanaysaa waxa aad jeclayd. qodobka u dambeeya, maxaad ku raaxaysataa? u fiirso. qofku waxa laga yaabaa ficilada qaar ama waxyaalaha qaar ama acmaasha qaar marka la sameynayo wax uu necab yahay uu karaahsadaa, wax uu ku raaxaystaa uu jecel yahay. marka shaygaad jeceshahay muxuu yahay? shayga marka lagu diro aad ku raaxaysato ee niyaddu kuu degto ee aad si macaan usoo dhammayso muxuu yahay? shayga ogow. shayga haddii aad ogaato waxaad ogaanaysaa mustaqbalkaaga ayaad maareynaysaa. waa 4 qodob oo aad iyo aad u muhiim ah. haddii aad raacdo 4 qodob waxaad ogaanaysaa muhiimadaada iyo mustaqbalkaaga. qofkuna haddii uu maareeyo mustaqbalkiisa waxa uu maareeyay noloshiisa oo dhan. waayo noloshu waxay ku taagan tahay mustaqbal. qofkuna mustaqbal kama maarmayo. markaa mustaqbalkaaga ogow waxa aad jeceshahay inaad noqoto. intaas ayuu ku saabsan yahay mawduuceena walaalayaal maanta. haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar. haddii aad ka cusub tahay page-ka saan cusubna subscribe noo dheh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.